kulanti haboon daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada barnaamijka wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda wadanka hooyo ee Soomaaliya hadahan oo kaleeto boggeena YouTube-ka aad ka daawataan fadlan daawade haddii aad ugu cusub tahay subscribe tanaga ilaabin gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino dhammaantiin waad mahadsantihiin sida markasta aad wararkeena u daalacataan warbixinadeenan aad bay daawada xasaas u yihiin fadlan in la soco horaanta ilaa iyo dhamaadka waxaan ku bilaabi doonaa ciidamada Puntland oo weeraray wasiirka arrimaha dibadda dhaawacayna nabadoon weyn oo dhanka madaxweyne Farmaajo si weyn u taageersanaa aan ku horeeyo ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin Puntland ayaa caawa weerar ku qaaday beerta nabadoon Yaasiin Cabdisamed ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu afur ugu sameeyay nabadoonku wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse iyo caruurtiisa oo booqasho qaraabanimo u tagay Gaalkacyo weerarkan ayaa waxaa ku geeriyooday askari ka tirsan ilaalada wasiir Cabdisaciid waxaana ku dhaawacmay nabadoonka oo lagu magacaabay Yaasiin Cabdisamed iyo sarkaal ka mid ah kuwa Puntland weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo un kadib markii nabadoon Yaasiin uu baaq u soo jeediyay Siciid Dani oo ah in uu wareejiyo xilka madaxweynenimada ee Puntland maadaama federaalka uu isku sharaxay nabadoon Yaasiin Cabdisamed ayaa siyaasad ahaan dhaliil badan u jeedin jiray Siciid Dani isagoo ku eedeeyay inuu sifo sharci darro ah ugu tagay Puntland isagoo aan xilka wareejin wuxuuna sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu xilka la wareegi doono kadibna loo dooran doono madaxweyne cusub waa nabadoonkii labaad oo markaasi lala beegsado dil ama lagu qaadaba qorasho markaasi la doonayo in lagu dilo ka gadaal markii maalmo ka hor ama 3 cisho ka hor magaalada Muqdisho lagu dilay nabadoon abwaan bedelkaasi oo si weyn isagana u taageeri jiray madaxweyne Farmaajo sidoo kale tan mucaaradka si weyn u dhaliili jiray wahagaagsi aad daawada ula socotid sheekada dulucdeeda waxir la dhageyso khudbadii maalmo ka hor uu jeediyay nabadoonka caawala dhaawacay Gaalkacyo lagu dhaawacay kaasi oo ka dalbaday Siciid Dani inuu iscasilo maadaama uu isku soo sharaxay xilka madaxweynaha ee Puntland kadibna aan isku soo laabano war wixii la isku qarsaday in la sheego madaxweynaha bilaabay Siciid Cabdullaahi Dani wixii madaxweyne Farmaajo ku qarsaday iyo isba sheegay marka warhaynaa marka madaxdeena dawladda hadda xukuumadda inoo hogaaminaysa oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu madaxda ka yahay 3 sano ay joogeen madaxweynuhu inuu qiraal u noqday inuu sarrabin inuu la shaqeeyo dawladda dhexe anigu hadda ka hor oday Cabdiraxmaan Faroolaaba wuxuu oran jiray geedka timirtaadan tagaya marka meesha ayaamii dhaweyd geedka timirta ariga ay ahayd geedkan baxarsaafka ay caawa hoos fadhina weeye waxaan halka baarlamaankiina hadda waxa la leeyahay diyaarad baa u diyaaro waa u raraya oo xamar bu guriga uga kirey waynu ka warqabnaayo baarlamaanka ninkii isaga ku dhawaaqay inuu 22 qof inta la tartamay ka guuleystay oo madaxweyne doorashada ku noqday gudoomiyihii baarlamaanka ku dhawaaqay waad ogeydeen oo xabad buu wadanka kaga saar kuwii xildhibaanada ahaa yiri war madaxweynuhu talada dalka dadka shacabka ah annagayna wakiisheen adigana annaga xilka ku dhiibnay wax maray 3 sano inuu la joogay dantiisu inay ahayd sidoo xamar ku tagi lahaa inaysan ahayn sidoo Puntland wax uga qaban lahaa xamar aadisteedana wuxuu ku sheegay danta uu kale yahay inay tahay Farmaajo inuu meesha dhaafiyo la diriro laakiin uu san damac kala lahayn Farmaajo saamiga uu hadda meesha ku fadhiyo 4.5 ka dadka halkaan fadhiyay iyo dadka dalkan degan miisaankooda ku fadhiyayo hadda isagu madaxweyne markuu yahay nin kale daaroodii madaxweyne ma noqon karo waa nin daarooda miisaan daarood buu ku fadhiyay 4.5 ka laakiin madaxweyne Soomaaliyeed baa haddii cid la diriraysa ninkii la diriri lahaa ma Muuse Suudi baaba ku filaa dagaalka iyo Cabdishakuur iyo Abriil 580 baan haysanaa ariga hadeeraan u dhacaynay wixii ka socday meesha weyn oogay niman baaban qarsan wahagaag daawadayaal muuqaalkaasi aad arkayseen waa nabadoonka caawa lagu dhaawacay magaalada Gaalkacyo xilli uu
afur u fidinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciid nabadoonkan oo si weyn u dhaliilayay Deni ayaa la dhaawacay. sidoo kale waxaa qorshahan dilka ah ka badbaaday wasiirka arrimaha dibadda Cabdisaciid isaga iyo caruurtiisa booqasho qaraabanimo u tagay magaalada Gaalkacyo hase ahaatee waxaa ku dhintay mid ka mid ah ilaalada Cabdisaciid oo ah wasiirka arrimaha dibadda. wixii soo kordho iyo dhaawaca nabadoonkaasi wararkeena kale ayaan daawada idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah ugu dalo waraali ka noqday halkan isha ku hay. markana aan isla fiirino qodob ku saabsan Fahad Yaasiin ma sii haysan doonaa ciwaanka warbaahinta jiheeyaha siyaasadda Soomaaliya. maalin ka hor maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa soo saartay qaraar ay si cad ugu sheegtay inaysan awood u lahayn qaadida dacwad uu hore ugu gudbiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir lana xiriirtay kursiga Hoob 86 oo beeshiisu ay leedahay kana soo qaatay magaalada Beledweyne. ha yeeshee guddiga fiid ee doorashooyinku ay sheegeen inaysan natiijadaas aqoonsanayn. waxaanu eegi doonaa 4 arrimood oo kala ah Fahad iyo siyaasadda, masraxa siyaasadda iyo dareenka bulshada, maxkamadda iyo waqtiga ay ku soo beegantay, iyo Fahad iyo kooxdiisa mustaqbalkooda siyaasadeed. Fahad iyo siyaasadda aan ku horeeyo